السلام عليكم أصحابتا سو دوادا walaalkiina Dirji Cusmaan jalka daawanaysiina waa Dirji Cusmaan muuqaalkeen maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee muuqaalka loo saaraa color grading adigoo isticmaalaya taleefankaada waliba application kaas oo ku shaqeynaya taleefanada Samsung iyo Apple ama iPhone bas u taqaanid soo dhawaada intaan muuqaalka bilaabin kor jalka hada ku subscribe noo saar waxaan inta dhiirigelin saan u sameeyno muuqaalo badan soo dhawaada okay aan soo laabano sida aad ogtihiin muuqaalada inta badan waxa qurxiya kalarka awood u badan waxa la saaraa dhanka kalarka sidoo kale inta badan kalarka waxa loo isticmaalaa software sida Premiere Pro Filmora way badan yihiin software badan loo isticmaalo kalarka laakiin maanta waxa ku sun doonaa application kuwaas oo ku shaqeynaya mobilada nooc walba uu yahay smartphone mar rab inaan warkiisa ku badiyo waxaan rabaa inaan sida loo sameeyo kalarka waliba loo isticmaalayo taleefankaaga okay waxaan sheegi doonaa application magaciisa application waxa yiraahdaa CapCut waxa isticmaali doontaa kaliya saddex tool waxay kala yihiin marka application gudaha soo gashid toolku waa isticmaal waxa waa import waa inaad soo gelisaa sawirka kalamaad isticmaalaysid waxa waaye waa inaad taabataa qaybta filterka waa inaad filter sartaa filterka marka sartid kan saddexaadna waxa waaye adjustment-ga inaad saxdid ugu dambeyn muuqaalku wuxuu kusoo bixi doonaa muuqaal kaaliska aragga waa marka aad u sameeyay fiican okay hadda tan warkan ku balin wax isla banaaw doona muuqaalka intaan muuqaal gudbin karo screen taleefanka aan aadin waxa ka codsanaa mar labaad inaad channelka subscribe u saarto waxaan u dirgelin saan u sameeyno muuqaal kale soo dhawaada hayo asxaabta soo dhawaada haddana waxaan sameyn doonaa sheeg muuqaalkii sidee macnaha in muuqaalkaaga u saari kartaa kalar qurxoon adigoo isticmaalaya taleefankaaga waliba application-ka yiraahdo CapCut in application-ka waa soo furaysaa workspace-kiisa waa sidan new project ayaa dhehaysaa macnaha waxaa soo gelinaysaa muuqaalka arabta inaad sameysid meesha ku yaala aad taqaanid kan ayaan soo gelin doonaa kadib add ayaa dhehaysaa okay muuqaalka marka uu san yahay waxaan hadda muuqaalkan waa kan originalka waaye markii originalka maadaama uu kan yahay waxaan sameyn doonaa shay kana copy ka dhahnayna copy ka dhahnayna marka hore markii originalka kan waaye kana edit ku sameynayna markii taabo marka muuqaalka taabo marka muuqaalka taabatid waxaad sameysaa filter meesha ku qoran taabo filters marka taabatid filter ku habboon ku raadi inaha midka aan doorto leh dooran adi muuqaalka aad sameynaysid filter ku habboon oo soo baxayo oo qabsanayo kaas sameey ku aadi daani kana saara maintain kadib meeshan hadana aan ka bixinaa waxa taabanaa meeshan adjustment-ga kadib inta ka saxa sida iPhone-ka camal marba aan muuqaal dhigelinaysid oo adjustment-ga waxa saxaysidna iftiinka taleefanka dheereyso okay tinka waxaan ku dareynaa adjustment-ga wax yar macnaha adiga setting-ka macnaha adjustment-ga ana sidna waxa tirooyinka isticmaala aad isticmaalin muuqaalka wuxuu soo baxay taqaanid
okay muuqaalka hadda editing saan waaye originalkiisana saas oo ahay marka okay apply oo la dhahaynaa kadib muuqaalka hadda edit la'aantiisa saan waaye marka la edit gareeyana saan waaye waxaan rajeynayaa inuu farqi u dhexeeyo muuqaalkaaga adjustmentiga tartiib inaad u saxan kartid oo muuqaalkaaga hadduu quality leeyahay okay waaye xoogaa hadda anaga wax yar waxaa naga dhiman okay muuqaalka hadda waa kaasaa waan sameynay originalka waa saan editka sokar lamidin waa saan okay kan waan iska delay doonaa originalka kana save gareysan doonaa waxaan rajeynaa inaa muuqaalkan ka faa'iiday oo aad samayn doontid muuqaalo badan oo kalar leh weliba aad isticmaalaysid taleefankaaga kuna duubaysid taleefankaaga kulana edit garinaysid taleefankaaga mar kale soo dhawow channelkana subscribe noo saar waxay noo tahay dhiirigelin mahadsanid ciao ciao